السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته soo noqosho wanaagsan oo qiimo badan barnaamijkan maanta waxaan kaga hadlaynaa tabo iyo xeelado kooban oo ku saabsan adeegsiga barnaamijka loo yaqaan Google Chrome lagana yaabo qaar badan idin kamid ah inaad adeegsataan markaad wax baaraysaan wax raadinaysaan tabahan waa kuwa aan waqti bartay waqtiyo kala duwan hubaashiina markaan si deeply ah ama si qoto dheer aan u adeegsanay barnaamijkan ii fududeysa inaan xogteeda baaro ama si fudud oo isku aadan ah ku habaysto tabahaas ayaa ah kuwa qasab aysan ahayn qof kasta inuu adeegsado laakiin haddaad adeegsatid ama aad tahay qof aad wax uga baara baraha bulshada khaasatan dalacayaasha qaas kala duwan sida Safari ama Google Chrome xogahan badan waxay ku saabsan Google Chrome kuwaasna waxaan isleeyahay idin anfici karaan haddii aad tahay qof aad u adeegsada marka ku soo dhawaada sida hore waxa xasuustaan waxaan ka soo hadalnay hadda ka hor tabo iyo xeelado iska madadaalo ahaa kuwaas oo lahaa Google Chrome qodiisu kuwaas iska madadaalo ahaa macno weyn iyo cilmi badan aan xambaarsanayn laakiin maantay qodobo yar oo meeshan ku soo gudbinayo waa kuwa aqoon ahaan aan isla wax idin faa'iideynayaan qodobka ugu horeeya waxa weeyaan tusaale ahaan kale waxaan rabaa inaan baaro mowduuc waxaan ka rabaa inaan baaro si deeply ah aan u baaro qodobo kala duwan oo aad u ballaaran in wax ka aqriyo tusaale ahaan waxaan rabaa inaan dhaho Soomaaliya inaan wax ka ogaadaan raba Soomaali markii soo baxdo qodobka ugu horeeya soo baxay waa Wikipedia aan sii galay gudihiisaan akhrinayaa wuxuu yiri tusaale ahaan kale waxa waqooyi kaga aadan Gulf of Aden gacan ka cadmeed wuxuu yahay maaqan waa sii fura laftigiisa inaan sii akhriyaan raba dhexdiisa waxaan ka sii galay haddana waxay ku noqosaa Boosaaso ugu yiri Boosaaso ma aqaan waxay tahay waa sii dhex galay ama meeshii hore u laabtay waxa ii soo baxay Italian Somaliland waxa uu ku sheegay waxyaalo badan oo kala duwan baa ii soo baxay si wad waxaa noqon kartaa Somali Civil War xog badan kama hayo ma garanayo dhamaantood waxaan rabaa inaan hal mar wada akhristo marka sida meesha idin kaga muuqata Soomaaliya kaliya ka hadlaya baan rabaa wax ka baaro laakiin wixii way ugu dheeraadeen Soomaali markaan rabay haddana mowduuc kale igu soo dhacay waxaan rabaa inaan ka sii hadlo waxaan rabaa inaan la sii barbar dhigo dal kale wuxuu noqon karaa Djibouti waan rabaa inaan la barbar dhigo Djibouti ay soo baxday xogteedan baaray waan sii dhex galay wuxuu yiri Cafar dad degan meeshan dadka Cafarta aqoon badan uma lihi waxay xuduud la leeyihiin badda cas aan sii galay marka hadda waxyaalo badan baa isdaba taxan qaanadeeda yarta way kooban tahay dhinaca Soomaaliya raana kaga hadlo dhinacna waxaan rabaa inaan wax ka baaro oo macluumaad badan ka ogaado Djibouti hadhowto meeshaan marayay ma garan karo haddaan dib u laabto wixii dhan isaga dhexyaasiin baa laga yaabaa marka waxaan samayn karaa oo Google Chrome uu leeyahay مواضيعda aad baaraysay si doona calaaqaas kula yeeshaan in aad adigu kala group ka dhigi kartid oo group u sameyn kartid sida computerka dhexdiisa folder aad uga sameyn kartid oo kale saas aan u sameeyo maxaan sameynayaa qodobka ugu horeeyaan imaanaya waxaan leeyahay tabkan ama meesha yarta furan waxaad ku dartaa new group ka maxay waxaan magac u bixinayaa Soomaaliya ayaan leeyahay midab baan hoosteeda ka dooranay tusaale ahaan midab blue ayaan leeyahay Soomaaliya maadaama calanka blue yahay kadib marka meel cad ku dhufto waxa ii samaysan Soomaaliya oo ah taabka ugu horeeyay aan dooranay ee nagu dhex jirto mid kasto agtiisa yaal markaan ku jeedo xariiqda geeyo xariiqdan buluuga idin muuqata waxay ka micno tahay wuxuu ku jiraa groupka Soomaaliya hoostagaysaa meeshaas kan ku xigaan sii geynayaa Boosaasan ku daraya Italian Somaliland ma ku daray Soomaaliya ku sii daray dhag wixii Soomaaliya ku yaal dhan waxa soo geeyay meeshaas haddaan Soomaaliya korkeeda ku dhufto wuxuu siinayaa calaamad group yar oo Soomaaliya ku qoran tahay oo markaan ku dul dhufto dhammaan wixii ku jiray dhan ay furayo marka haddana ku sii dul dhuftan oo ii xirayo Djibouti sidoo kale aan ku sameyn karo waxaan leeyahay Djibouti waxa ku dartaa new group waxa ku dartaa uu leeyahay group hore kugu samaysnaana waa ku kordhin karaa hadday tahay xariiq cusub haddii kale waxaan leeyahay group cusub waxaan u soo gaabanayaa DJ waan soo gaabanay Djibouti calankeedan waxaan ka dhigayaa midab jaallo ah baan iska doorto jaallo fiican ka bacdi qoraal kasto agtiisa yaala oo Djibouti quseeyo halkaas aan gelinayaa wakaas hadda calaamadan jaallaha dhan waxay cadeynaysaa in qoraaladaas dhan ay ku jiraan fartaas DJ ku qoran tahay marka haddaan sii raadiyo wax kale oo ah any other country oo dal kale aan rabo inaan raadiyo tusaale ahaan Kenya haddaan dhaho okay sii galo hadda Kenya qoraalada si raaxalan ku akhrisan karo waxaan samayn karaa Soomaaliya waan iska xiriyaa Djibouti waan iska xiriyaa Djibouti
iyo Djibouti iyo Soomaaliya hadda si kooban ayay meel igu jiraan Kenya wax quseeya wax ka baari kara haddaan rabo inaan dib ugu laabto Djibouti meesheedaan furayaa mar labaad wax ka soo akhrinaya haddaan rabo inaan Soomaaliya ugu laabto ayadana isku ag furaya labadooda haddaan rabo inaan iska xiro waa iska xiraya the same thing waxaan ku samayn karaa Kenyana ku samayn karaa qodobka ku xiga waxa weeye tusaale ahaan oo kale saa ognahay marar badan tusaalahan Soomaaliya kala furaya qodobada meesha igu qoran oo gulif afcadan boosaaso quseeya ciwaanada halkan ku qoran oo kale marar qaar mid baan isleeyahay aad buu ku anfacaya laakiinse haddii laga yaabo qaar badan anoo kansalayay mid baan si khaldan saga kansali karaa marka calaamadahan cancel dhan way furan yihiin marka sida uga hortagi karaa inaan si accidentally ah ama si aan ku talagal ahayn aan saga xiro fantax ii furnid wax ka akhrisanayay su'aalahan oo meesha ku qoran tahay gulif afcadan korkeeda imaanaya waxaan leeyahay bin meesha bin ku dhufan ku qoran tahay ku dhufto wuxuu geenayaa geeska yar ku geenayaa taa maxaa ku sameynaa marka space na uu ii yareynaya oo dhinac uu ii geenayaa labo si aan ku talagal ahayn haddaan si accidentally intaan imaado korkeeda cancel ma dhihi karo igama xirmayo waana meeshaas ugu jira markastoo aan rabo ayaan usoo laaban karaa wax oo ku talagal ahaan iga xirmayana ma ahan haddaan rabo inaan dib u furo oo aan ka takhaluso aan rabin oo mawduuca waxaan rabay ka akhristayna aan bin baa dhahaya ka bacdi ayaan cancel dhahaya taasna waa qodob kale qodobka ku xiga dhammaan waxa maanta dhan baarayay qaybo xog qufaysa Djibouti iyo Soomaaliya anoo iska joogo ku talagelin ayaa si ku talagal aan ahayn waxa dhammaan iga cancelmay xogtaan raadinayay Google Chrome dhan baa ka xiray marka Google Chrome soo kiciyo hadhowto mar la soo kiciyo xogteedii ku heli karaa wixii dhan iyo furnaa baalay alaabta iyo daaran dhan sida ku heli karaa waxaan tagi karaa meeshan ay ku qoran tahay labada dhibcood ka baad waxaan dooran karaa history meesha ku qoran tahay ayaan sii gali karaa ama waxaan dhigi karaa control h markaan iraado xogtaan raadinay dhammaan ayaa ay soo baxaya oo ugu horeysa Kenya iyo xil halmaal dhamaantood haddii marka aan u baahanahay mararka qaar xogta noocan oo kala ah oo aan galay haddaan rabin inay soo muuqato tusaale waxa kugu dhici karto kala meel internet cafe ah ama qof kale computerkiis baad ku qasbanaysaa inaad emailkaaga gashid xog kala soo degtid ama internet cafe intaad tagtid wax ka daabactid laakiin haddana ma rabtid in xogtaadii la sii dabagalo oo qola kala akhrisato markaas oo kale maxaan samayn karaa meeshan geeska intaan ku soo dhufto meesha ku qoran tahay new incognito in window ama control shift n markaan iraahdo wuxuu ii furayaa khaanad cusub khaanadaas oo sidoo kale muuqato kiyaalo koofiyad ku qoran tahay wuxuu leeyahay xogtaada lama kaydinayo baasuurada lama kaydin wax kasta aad samaysay lama kaydinayo sidaas la mid ah haddaad rabtid mararka qaar page fara badan oo waxaa jira hadii goor aad booqatid ha noqdaan kuwa Soomaaliya haddaan ka hadlayno noqdo ha noqdo kuwa quseeya waxbarashada jimicsiga caafimaadka whatever aad jeceshahay mararka qaar haddaan rabin website-daas inaan hal maal kasta aan u qoro oo aan rabay inaan hal meel isugu geysto maxaan samayn karaa su'aalahan hadda si meeshan kaga muuqata Soomaaliya mawduucyo kala duwan Soomaali quseeya ayaan baaray kama soo qadan yihiin website kala duwan inay dhamaantood ama qodobo aad iyo aan u danaynayo waxaan samayn karaa meel dhaho bookmark wax la isugu geyn karaa bookmark maxaa tahay page-ka ugu soo horeeya mid kamid ah ayaan xidigta dooranayaa ka bacdi Soomaali Wikipedia ku qoran magac waa ka bedeli karaa hadaan doono bookmark soo galaan leeyahay another folder baan leeyahay ana magac la baxay new folder waxaan leeyahay Soomaaliya marka doonto save ayaan leeyahay marka ku xigaan imaanaya sidoo kale aan sameeynaa Soomaali way doorantay dhan baan leeyahay kan ku soo xigaan imaanaya calaamadan dooranaya dhan baan leeyahay kan ku soo xigaan imaanaya calaamadan dooranaya dhan baan leeyahay hadhowta marka halkan intaan imaado bookmarks halkan imaadan aan iraahdo show bookmark meesha waxa iga soo muuqanaya in Soomaaliya tahay Soomaali korka marka ku dhufto dhammaan qodobadii ama fileska ku saabsan Soomaaliya ee aan save gareystay ay soo baxay sidaas la mid waxaan samaysan karaa kuwa ka duwan oo had soolaan ka soo qad u dambeeyo inuu yahay mid quseeya health marka haddaan meesha ku dhufto Soomaali ayuu soo saaraya haddaan doono waa ka saari kara remove baan oran karaa ama waxaan leeyahay more markaan iraahdo new folder baan leeyahay waxa ku saabsan yahay leeyahay health ama caafimaad hadda sidii muuqato Soomaaliya health hoos tagay marka waxaan leeyahay hadda waa tiraya ama edit baan dhahayaa edit waa tiraya
bookmark ayaan dooranaya ka bacda new folder sameynaya new folder markaan dhaho oo health iraahdo way siman yihiin hadda laba folder oo waxa way xaga ka soo wada muuqanaya midkaan hadda way siman yihiin kan way mursan yihiin laakiin haddaan rabo mid ka mid ah su'aalahan kale waxaan leeyahay home baan dooranaya haddaan rabo mid ka mid ah inuu sii hoos tago Soomaaliya ya sii hoos tago ya hadda waxaan leeyahay Mogadisho waa gobol hoos taga gobolka Soomaaliya Soomaa luqad kale ugu soo baxay no problem waan doortay meeshii health ahayd ma dhihin more baan iri Soomaaliya korkeedan ku dhuftay new folder baan ka bacdan waxaan dooranayaa gobollo markaan iraahdo ku dhufto Soomaaliya markaan imaado qodobada hore ay save garaysan yihiin haddana dhexdeeda ayaan gobol kale waxa ka samaystay qodob kale oo waxaan leeyahay goboladeeda halkaas aan soo safayaa goboladii kale waxaan ku soo darayaa Mudug waxaan ku soo darayaa Hiiraan Sool Sanaag whatever aan wato gobolada dhan ka soo gelinay saasi lamadana qodobo kale ayaa soo gashan karta taasna waxay ku fududeynaysaa page kala duwan oo aad rabtid si joogto inaad u booqatid ama aad markasta rabtid si fudud inaad ku heshid sida meel soo geyn kartid taana waxaan isleeyahay waa xawaya mid waqti badan waa shay idin save gareyn karta sidaas lamida haddaan rabo bahal qodobada mid ka mid ah inaan gees soo marsado waan riixi karaa kan intaan qabto Muqdisho ku qoran yahay gadaal waa geyn karaa ama soo horkeeni karaa kan u dambeeyo dhexdaan keeni karaa saas lamida control intaan qabto ama shift waxaan isku dooran karaa intaan doono salahan shift baan iri ilaa ka u dambeyn imaad dhamaantood uu dooray waa qabanaya gadaal baan isla geynaya ama waxaan sameeyaa laba xabaan isla dooranay midka ku qoran tahay Soomaaliya iyo ka ku qoran tahay Cold War labadaba qabanaya markaan ka kaco Cold War waxaan sameeyaa shift waxaan qabanaya control midkaan doortay Cold War baan doortay waa ka kacaya control ka sii deynaya ka bacdi waan qabanaya waa jiidaya laba isla socotay meeshu doon ii keenaya sidii muuqata hadda dhinac doon u jiidi karaa haddaan rabo marka inaan baaro file cusub inaan baaro haddaan rabo oo wax cusub baaro intaan soo dhaqaaqo calaamadan plus dad ku dhufan lahaa intaan raadin waqti way waxaan samayn karaa control T haddaan doorto automatically wuxuu ii furayaa meeshan doonay waxaan doona ku qori karaa control T ka haddaan sii daabto meel kale cusub ii furay control T ka meel cusub ii furay marka control T na waa tactic yar oo waxyaalo badan ku furin karto oo markii ku furaysa sidaad wax u baari lahayd waxaa jirto kale control shift T oo ah page ugu dambeeyay marka ka kansalmay tusaalahan kala hadda Muqdisho mid ku qoran kansalay waxa raba kii ugu dambeeyay iska xiray muxuu ahaa history dhan inaan halal u kala mar rabo waxaan dooranayaa control shift T haddaan doorto Muqdisho ii soo celinaya mar labaad oo ayadoo hortaalayaan arkay markiiba taasna waxay ii fududeynaysaa inaan si degdeg ah ama meeshii history galin waxyaalo baqaar soo ceshan karo taa waxay ii fududeynaysaa marka inaan ku qasbanayn waxyaalo badan inaan si automatic inaan si joogto u raadiyo control plus something control plus s control plus o waxyaalo badan ay qabtaan jir hadda control p haddaan taabto kale wuxuu sameynayaa printing buu sameynaya oo page kan hadda idin muuqdan sidoo yahay ayaan printing kala soo bixi karaa marka waxaa jirta xaraf kasta oo control raacisid waxba u taagan yahay markii Chrome la joogo dhamaantood inay xadis kuma qasbaneed laakiin waxaa jira kuwa basic ah oo isleeyahay huba shay aad ku anfacayaan macluumaadka intaas ku kooban yihiin hadda ka faa'iido asxaabtaada iyo dadku u dhow la wadaag waa Maxamed Azhari is arag maqal dambe oo xiiso badan. Assalaamu calaykum.